wasiirka dhalinta ciyaaraha iyo dhaqanka Somaliland Cabdisiciid Faahiye oo ay weheliyaan isduwaha wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha gobolka Awdal Cabdiwahaab Yuusuf Garle iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Xaaji Nuur Sugaal ayaa galabta kormeer shaqo ku soo maray garoonada ay ciyaaruhu ka socdaan degmada Boorama. Mas'uuliyiintan heerka qaran iyo heerka gobol ayaa waxa ay kormeerkooda ku soo mareen afarta garoon ee ay ka socdaan ciyaaraha kubadda cagta ee bisha Ramadaan. waxaana halkaas hadal ka soo jeediyay wasiirka isagoo sheegay in uu gobolada oo dhan kormeer ku marayo socdaalkanina kamid yahay kormeerada wasaaraddu wado. booqashada ay salka ku haysaa booqasho iyo kormeer ku sameeynaya gobolada dalka oo dhan taasoo aan u diyaar garoobeyna ama aan qaban qaabinayno ama aan indhaynayno sidii aan u qaban lahayn tartankii gobolada ay u ciyaari lahaayeen lixda gobol caasimad Jamhuuriyadda Somaliland awal bal la qaban jiray laga soo saari jiray xulkii qaranka Jamhuuriyadda Somaliland uu yeelan lahaa taasoo doonayeen inuu hamigiina aad gelisaan ama ciyaartiina aad ku muujisaan ama wixii la idinka bartay aad ku muujisaan adaati reer Awdal in aad xifradii aad lahaydeen soo bandhigtaan sanadkan si aad u hanataan koobka gobolada dalka gobol walba ku guubaabinaya idinko gaaram idinko kaliya maaha gobol walba waxaan leeyahay wax xifrad hayso ama aad ciyaar hayso u diyaar garow sanadkan waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan qabanno tartankii gobolada isku duwa. sidoo kale iyagna waxa halkaas ka hadlay isduwaha wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha gobolka iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Awdal waxa ayna sheegeen waxa booqashay nimadeed si uu nuuro oo qaato koobkan iyo tartankan Ramadaan ee aad wadaan ka socda garoonkan Sheekh Ismaan oo garoon tacab badan naga galay aynu in dadaal badan ka sameeynay inta dhameystirayna aynu dhameystiri doonaa hadii Ilaahay yiraahdo kamidisa aynu oran doonaa isaga iyo barasaabka oo garasa Cabdi Nuur Sugaal isaga oo badabada joogteen kelmadooda ayaynu oran doonaan si ay niga qayb qaataan tartankan bisha Ramadaan aynu qaban qaabinay ka socda garoomadeena kala duwan waqtiguna gobolka Awdal gaar ahaan magaalada madaxda degmada Boorama garoonka Sheekh Ismaan waxa ka socda bisha barakeysan ee Ramadaan koobkii loo dhigay waxa badan baa ku ciyaara iyadoo waqtigu nagu yar yahay waxaan kugu soo dhaweynayaa gobolka Awdal mar labaad waxaan ku leeyahay waa gobolkaagii gobolkaad u dhalatay ku soo dhawaan ku leeyahay nimankana waxaan ku siinayaa kelmadda welcome. si kastaba ahaatee kormeeradan maanta ay sameeyeen mas'uuliyiintan ka socotay wasaaradda dhalintu ayaa noqonaysa tii ugu horeysay noociisa oo kala ah tan iyo intii maamulkan cusub ee Siinaayo talada dalka la wareegay. tanina waxa ay noqonaysaa mid u furta albaab cusub xiriirkii hooseeyay ee u dhaxeeyay dhalinta iyo wasaaraddan. waa Jaabir Ali Umar, shabakada caalamiga ee wararka Boorama Online, xarunta gobolka Awdal, magaalada Boorama.